boqor jaamac yuusuf cabdi buuni oo loo yaqaano jaamaxiis isla markaana ka soo jeeda gobolada Togdheer Sool iyo Buuhoodle oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa ka hadlay xaaladda colaadeed ee ka taagan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxaanu ugu baaqay garaadada cuqaasha iyo waxgaradka gobolka Sool inay joojiyaan colaadda deegaanadaasi ka taagan iyo sidoo kale dhanka xukuumadda Soomaaliland wuxuu ugu baaqay inay isla iyaguna joojiyaan colaadda iyo xabadda ka socota magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maadaama lagu guda jiro bishii barakaysneed ee Ramadaan isla markaana alla laga cabsado waxaana ka mid ah hadaladiisii magacayga waxa la yiraahdaa boqor jaamac yuusuf cabdi waxaan ka soo jeedaa intay garanaysaa laakiin deegaanka Buuhoodle galbeedka Buuhoodle ka soo jeeda laakiin madax dhaqameed waxaan u wadaahay bulshada afka Soomaaliga ku hadasho dhan meel kasta ay joogaan marka horeysa Ramadaan mubaarak Ramadaan kariim Ramadaan wanaagsan waxay maanta tahay maalintii koowaad ee bisha Ramadaan waxa aan doonayaa kale inaan ka dareen hadlo runtii oo igu kalifay xaaladda ka taagan deegaankan aan u dhashay ee aan ka soo jeedo Sool iyo Buuhoodle iyo deegaankayga Saraar iyo dhan guud ahaanba madaqadan aan ku noolahay oo ah dagaalkaas dhiiga badan ku daatay walina aan xalka laga gaarin ka soconaya Laascaanood iyo agagaarkeeda marka horeysa muslimiina waynu nahay dadka muslimka ahina dhiigoodu waa kala xaraamsan yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhiiga sidoo u xaraameeyay muslimku inay isdilaan ayuu xaraan u yahay waana laynoo sheego quraanka iyo axaadiistaba waa laynoo sheegay dhiigeena inaynan daadin waxyaalo xaquuqaho laga soo reebay mooyaane halka hawsha ka socota dhowr qodob baan doonayaa inaan ka hadlo marka ugu horeysa dareenkayga waan ka xumahay inaan keligay hadlo dad badan oo koofiyada sita iyo dad badan oo culimo ah iyo dad badan oo waxgarada baa dunida ku nool oo aan ila qaba dareenka aan qabo oo kale laakiin inaan kayga hadlo oo kayga dhaqanka ku hadlo oo Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala wixii uu barakoobayo barakoobaye ayaan go'aansaday aniga oo kaga faa'iideysanaya bisha Ramadaan iyo kowdeeda waxa aan runtii aad iyo aad uga damqanaya dagaalka ka socda maanta mandaqadan aan ku noolahay dagaalkaas oo tala xumo ku yimi inuu doonaba ka yimaado in badan oo dadka kamid ah waa ka hadli lahaayeen sideedaas oo kale laakiin waa dagaal xasaasiyad xambaarsan waa xilli adag waa xilli la istabindhawrayo dadka hadalkooda la duwayo beentii farabadatay ujeedooyinkii ay aad iyo aad u farabateen waxyaalihii Ilaahay xarimay ee beenta iyo isku dirka iyo dabka in la shido iyo waxa aad moodo dadkii iminka loo fasaxay oo la yiri fasax baa u tihiin waana waxyaalihii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu xarimay meesha waxa ka socda sida awadeed baan dad badan ugu dhiiran kareen inay ka hadlaan haddii laga hadlana aan la xukumi karaynin maadaama aanad adigu judgmentkii lagu dhiibin oo aanad yeedhinayn sida awadeed baa dad badani uga taxafudayaan inay ka hadlaan laakiin waxaan isku dayayaa bal inaan si guud ahaan uga hadlo anigoo aan iska ilaalinayo inaan cidna duro waayo cid waliba arintani waxay u baahan tahay qaboojin uma baahna in la kululeeyo umana baahna in magacyo la kala sheego umana baahna in garab laga dhigo maanta halkay marayso ama sideedaba dad muslimiina oo isku dhacay oo khilaaf dhex yimi sideedaba waxay u baahan tahay in la dejiyo waxaan aad iyo aad uga xumahay inuu dagaalkaas muddada inta leeg socdo waxa dareenka ay soo kiciyay kamid ah
inaan cid maanta ku dhex jirtaa jirin waxyaalaha dareenka igu beeray aan isoo kiciyay waxa kamid ah inay bishii Ramadaan bilaa xurmada lahayd ugu weyneed ay maanta bilaabatay waxa isoo kiciyay waxa kamid ah in ciidankii meesha isku dilayay is hor fadhiyo waxa isoo kiciyay waxa kamid ah in maanta cid dhaxa ummadii Soomaaliyeed ee diinteenu ina fartay hadii dad walaalay istilaan in la dhexdhexaadiyo meel kasto oo ay joogan waxle anay gaarsiin halkaas annaan dagaalkan ka qayb gelayaa igu sima mooyaane cid ilaahay dartii u soo baxday oo war dagaalka joojiyo oo islaamnimo ku baaqayso calama sidato oo kala dhex galaysa inaanay joogin hadaa doonto haba aaminsanaanin adigu qadiyadaha meesha ka jiray waxa lagu wada hadlayo iyo waxa la isku haysto laakiin islaamnimadu waxayna faraysay inaynu dhex ku noqono oo ay ummadda qayb ka mid yihiin marka dadka qaar cadhaysan yihiin isku dhacaan ummadda qayb ka mid yahay wanaagga iyo islaaxa iyo islaamnimada ka shaqayso dhiiga daadanaya joojiso dhex gasho dadka u caqli celiso ama dawlad ha ahaadeen ama shacab ha ahaadeen laakiin wax la isku sii shida annana nagu sima mooyaane dadkii Soomaaliyeed meel ay joogan waxaad moodaa in la kala raacay dagaalkii mandaqada yare kooban ka socday aad iyo aad bay arintaasuna dareenkayga u soo kicisay hadallada wixii Ilaahay barakeeyuunba barakooba waxaan ka la hadlayaa marka ugu horeysa arintaasu way cid weyday wayna tala xumaysatay nimban buu ku eedeynaya qolobo qolay leedahay dagaalka waana lagu bilaabaya waa maalin walba la loonayo waana lagu soo bilaabay taasuna xal maaha wax la wada wana Soomaalidu waligeedba way taqaanaayo intay istisho iyadoo laba qof oo qura maraysa ama saddex ayaa marka 300 dhimato la yiraahdana heshiin ama kun dhimato ama ka badan arintaasuna waa nasiib darro waligeed dadka Soomaaliyeed haystay kama gabowno kama ilbaxno isma xakamayno isma tanaasulo ilaa iyo wax badan oo dhibaato oo mashaqo ay dhacaan arintaasu waa arin runtii aynu ku ceebaysanahay dadka washida iyo qodoban oranaya ee arinta meel walba ha joogeen ama social media ka hadleen ama meel kale ha kaga soo gurmadeen ama siyaalo kale oo qarsoonaha ugu jireen waxa aad sameeynaysan Ilaahay way kala xisaabtamaya waxaanad ka arki doontaan guriyihiina iyo caruurtiina iyo maalkiina iyo nafihiina ka arki doontaan dhibaatada dad muslimiin oo walaalo ah oo isku dhacay halka wanaag iyo kala qaboojin iyo kala dejin iyo isu aqli celin iyo ka odayeyn iyo ka ergeyn iyo ka waftiyeyn aad ku sameyn lahaydeen inaad sii shidaan wax Ilaahay ka qarsoonay ma jiro qofkii hoos u yiraahdo iyo qofkii kor u yiraahdo malaa'igtii Ilaahay u diray Ilaahay isagoo idin og baa hadana la idin qoraya kuwa ay tamaya dhinacay doonaan baa ka soo jeedeen ee sii shidaya ee jaahilnimadu hayso ee aqli darradu hayso ee garasho xumadu hayso ee dabka ku sii shidaya dadka walaalaha ah aan meel la u kala guureyn meel la kala tagay waxa weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa idin kala xisaabtami doona mana baxsanaysaan qof walba wixii aad tirina waa ku qoran yihiin wixii aad ficil qaadayna waa ku qoran yihiin waxaan leeyahay wax qarsoon iyo wax muuqdaba hadda wixii ka dambeeya dagaalka hal la qaboojiyo yaan la shidin dhalinyaradan iyo dadkan fasaxa loo siiyaad moodo in la yiri beentu waa fasax oo dacaayadu waa fasax oo istifaaca khiyaaliga ah waa fasax meel kasta iyo dhinac kasta ka jira Ilaahay ka baqa Ilaahay kaga baqa arinkaas carabkiina ilaashada oo qalbigiina ilaashada oo indhihiina ilaashada oo arinka waxaan wanaag ahayn iyo qaboojinaha ka gelina meel kasta ba joogo
haddii aad arrintaa joojin weydaan ilaahay subxaanahu wa tacaala umuurihiinna iyo arrimihiinna uunbuu idinkana idinka qasi dunuubta aad samaynaysaan cuqubadeeda wuu idin arki adduunyada intaydinaan ka tegin bay idin cuqubadeeda arkaysaan mana aha halkan oo quree meel kastoo dadka muslimiinta isku hayso ama dadka walaalaha Soomaaliyeed isku hayaan wanaag waxaan ahayn lagagama shaqeeyo xumaanta waa laga ilaaliyaa dabka lama sii gubo idinka waxaan idin oranayaa nusuus fara badan baa ku soo aroortay oo quraan iyo xadiis bale in ilaahay lagaga boqo oo aan dadka muslimiinta walaalada alla isku sii dirin ilaahay kaga baqa in ilaahay bisha ramadaan amaasha idinka aqbalo joojiya waxa ku hadlaysaan oo dhan dawladda Soomaaliland ee Musabbixi uu madaxweynaha ka yahay iyo dadka shacabka ah ee reer Laascaanood ee ka soo horjeeda waxaan labadaba farayaa oo labadaba ka codsanaya oo labadaba aan si islaamnimo ah oo ehelnimo ah oo walaalnimo ah uga codsanaya inay dagaalka joojiyaan oo isxakameeyaan oo bisha ramadaan xurmada laynu ku jiro ugu yaraan joojiyaan inta la isku soo gaadhay ma hayna leeyahay bisha qura laakiin ilaahay bishan laha bil walbana waa jooga dambiguna sidiisii buu u qormaya xalaal idin ma aha waa xaraam dhiiga daadanaya ama shacab ahaw ama dawlad ahaw tala kale iyo aqli kale aan keeno joojiya dagaalkaas ilaahay kaga baqa dagaalka joojiya aan kala cibaadaysano bal dadku markay cibaadaystaan ee bisha ramadaan la tukado ee taraawiixdu badato ee qalbiyadu qaboobaan ilaahay wuxuu soo saari doonaa faraj buu inoo furayaa aan ducaysan faraj baa la inoo furayaa dagaalkaas waxa inaga istaago dagaalka inaga joojiya qola aad tihiinba joojiya indhihiina dib u laaba shaydaanka iska dhanara ilaahay weyn ee waaxidka ka baqa bal horta inta la isku soo gaadhayo annagu idin garanqi karimayno hadeero halka judgment lagama yeedhin karaye iyo cidaas khaldan iyo cidaas saxane waxaan oranayaa joojiya dagaalkaas halka waxaan kaga gudbayaa qodobkaas arintani dhex bay u baahan tahay dad muslimiin ah oo dhexdhexaad bay u baahan tahay dad yar baa ku filan hadday daacadnimo jirto oo ilaahay dartii u galaan iyo dad badaniba dadka dariska ah ee deegaanada waxaan oranayaa war kulliba intaad kaga qayb gali lahaydeen colaad iyo dagaal maad nabad iyo wanaagba kaga qayb gashaan maxay idinka hor joogaan maad ilaahay ajar ka qaadataan maad aakhiradiina u turataan maynu isu nimaadno oo aad calama qaadanno oo dhex fadhiisanno maxaa loo waayay deegaan qura oo yiraahdo meeshaasaan nabad ku tegaynaa waliba dadka ay u haboon tahay maanta oo kale ajarka fara badan iyo khayrka badan ka helayee aan iyaga ciidamo markii hore tuhmaynin meel aynu joognaba culimo iyo waxgarad iyo madax dhaqameed iyo siyaasiyiin dadka waxgaradka weli kama dhamaan laakiin waxaad moodaa inuu yaraaday waxaynu ku khasbannahay dagaalka inuu joogsado yawman min al-ayam baa laga heshiinaya dagaalku iskama socdo weligiina dagaal iska socdo noloshiisa lama arag maanta waxay naga dhintay rag badan oo dhalinyaro ah oo aqoon-yahanaa sabab ay ku dhinteen la garan maayo waana sii dhimanayaan dad badanna way naga dhaawacmeen waxaad dhici doontay beri dhow markay xilli kasta gaadhay in la yiraahdo inay ku dambayso sidii caadada ahaan jirtay wixii daantaana daadaha qaado hadda maxay noo talaa oo maynu iminka sida yeelo hadda maxay naga hortaagan ma dad kale inoo soo dhalanaya miyaan nasiib darro ahayn inagoo magacii Soomaaliyeed sheeganayno oo muslimiin ah oo sunni ah oo walaalo ah oo deris ah oo wada dhalanay oo is dhalay waxayna dhamaysan karayna gacmo geelshiro hoos baa loo dhaqaaya
in marba laba ninoo Ethiopiana ama laba ninoo wadan kale ka yimi intayna dhex maraan yiraahdaan dagaalka joojiya miyaanay damiirkeena cay ku ahayn miyaanay dadnimadeena iyo sharaf dhac ku ahayn miyaanay islaamnimadaynu sheeganayno meel ka dhac ku ahayn waxaynu ku wada hadlaynaa miyaanay ahayn luqadii aynu isku garan jiray waxaynu isu nahay miyaan garanaynin miyaan iska wada fadhiisan karin geed hoostiyo waxay naga xun saxan karin waxaan leeyahay war dad dhexdhexaad ay u baahan tahay arintaas iyo dad ku sii shiday imka uma baahnee dadka muslimiinta meel ay joogtaanba dhaqaalana waa haysataan farana waa leediin aqoonna waa leedihiin dagaalka nala joojiya soo dhex gala nabadda nagala shaqeeya annagana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha noo fududeeyo isu tanaazul baynu wax ku gaari karayna runtaynu wax ku gaari karayna beenta meesha laga saaro xaqiiqadu aynu soo noqono aynu wada hadalay lagu gaari karaya ilaahay waxaan ka baryayaa gabagabada in arinta ilaahay subxaanahu wa ta'aala wadada toosan ee laga geliyo ilaahayna waafajiyo ilaahay hayna waafajiyo ilaahay maskaxda waxaad moodaa aqligu inuu inaga maqan yahay oo uu dagaal iyo rabshad iyo dil iyo dhiig iyo dhaawac aynu ku maqannahay dhinac kastaba ha noqotee ilaahay dariiqa saxa ah iyo ka dagaalka lagu joojinayo iyo ka arinta abshirteeda lagu gelayo allahayna waafajiyo ilaahay hayna waafajiyo ilaahayna waxaan ka baryayaa bisha Ramadaan wixii tagay ee iminka inaga tagayna inuu inaga saamaxo tawfiiqdeedana inuu waafajiyo wixii ka dambeeyana in ilaahay subxaanahu wa ta'aala abshirteeda ina geliyo waxaan leeyahay oo ku celcelinaya oo ugu soo noqonaya dadka kale ee muslimiinta ah ee meel kasta ku nooshihiin waraan ducaysano dhibaatooyinka noocan oo kale ah ka ducaysano oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu toobad keeno oo aan diinteena aan run ka sheegno oo qulubteena aan run ka sheegno oo qalbigeena iyo ficilkeenu hays waafaqo oo qowlkeenu ha waafaqo oo si dhaba oo kalgacaltooyo ah dagaalka kulliba uu joogsan doona yooman min al-ayaam wariyaynan ku halaagsamin intaa waxay ka dambeeya intaa inaga tagtay iyo nacasnimada iyo talaxumada inagu dhacday yaanay mid dambe inagu dhicin waxaan garaadada leeyahay isxakameeya iska inoo cibaadaysta bal aan isu nimaadno dawladda waxaan leeyahay isxakameeya arintaa joojiya dagaalkaas ha istaago hadalkaas waxa soo kiciyay waa dareenkaas inuu dagaalkaas inaga istaago ilaahay kaga baqno subxaanahu wa ta'aala wada hadallo kulliba waynu ku khasbanay kala guuri mayno deegaankeena la kala rari maayo inagu ka dhamaanayno ka dhimanayna deegaanku guuri maayo halkaas uu ahaanaya dadkuna sidaas ay ahaanaya maalin walba hadduu xaga ka dhintana dhinaca kalena waa laga barooranaya hadduu xaga ka dhintana waa laga barooranaya maxaa faa'iido inoogu jira maxaynu ka faa'iideynaa ma maantana talama hayo shalayna talaan awood baan hayay maantana talaan hayaaba inuu weligan ku jiri karayna ayaa la ciga ducaale Bukhari telefishinka sahan burco